Cisbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera ayaa maanta laga sii daayay 20 qof oo ka bogsaday xanuunka dhimirka taasoo in muddo lagu daaweynayay cisbitaalkaasi waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale mas'uuliyiinta bahda caafimaadka ee gobolka Saaxil 20 qof ee ka bogsaday xanuunka dhimirka ayaa 7 ka mid ah ay u dhasheen dalka Itoobiya taasoo ay dawladda hoose degmada Berbera ka soo ururisay suuqa magaalada Berbera isla markaasina ay keentay cisbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera si loogu daaweeyo ugu horeyntii waxyagu halkaasi ka hadlay isuduwa ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Cabdiladiif Maxamed Axmed iyo sidoo kale Dr. Cabdilaahi Yuusuf Meheriye oo isagu in badan ku dadaalayay si dadkaasi u caafimaad lahaayeen isagoona kamid ah dhaqaatiirta gacanta ku haysta cisbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera maanta waxaan oo farxada inaan sii deynayno 20 qof ay 7 ajaanib yihiin oo 7 ajaanibka ay dawladda wanaga caawinayso sidii loo siin lahaa gaarigii qaadi lahaa ee ku wareejin lahaa xuduudka Wajaale iyagoo sita daaweyntii ay qaadan lahaayeen muddada soo socota lagu wareejiyo daaweyn immigrationka Wajaale facadii saddexaad sidii dhakhtarku inoo sheegay oo bogsatay oo maanta caafimaad qaba oo quruxda leh in la anbabixiyo oo 7 qof oo ka mid 20 ka beeshin ay yihiin dad u dhashay Itoobiya oo runtii Ilaahay ha ka saaysiiyay madaxda gobolka gudida caafimaadku iyagoo iskaashanaya wasaaradduba ay anbabixinayaan hadii Ilaahay yiraahdo iyadoo lagu wareejinayo hadii ay baydmo dalka u dhashayna Itoobiya maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo sidoo kale Mustafa Cumar Kajoog ayaguna halkaasi ka hadlay marka anaga mas'uuliyaddeedu nooma kala soocna dadka bini'aadamka ah ee Berbera ku nool ee xanuunsanaya hadduu casaan yahay hadduu madow yahay iyo hadduu cajab yahay cid doonaba ha noqdo qofkii ku dayacan magaalada gudaheeda waan soo qabanaa isbitaalkana keenna halkan lagu daryeelaa sida imka bayda ka muuqata halkan laga kaxaynaya labada wado ama 4 wado inaahne laba bad ka yimaada iyo laba bari ka yimaada ay dadkani soo raacaan gacan siiya oo garab siiya anaguna waxaad ka ballan qaadana sidii kuwii hore baan ka ballan qaadnay qof kasta oo xirfad shaqo ka qaban kara dawladda hoose inaan ku shaqaaleysiino dufcadii koowaad waa tii saddexaad ee bogsata Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuma soo celiya xanuunkaas waa xanuun sahlan dadkeenu si xanuun adag bay u yaqaanaan dad 600 oo qof ku dhow baa outpatienta xafiiska halkan yimaada oo kiniinka ka qaata oo bogsaday oo 80% noloshoodii caadiga ah maareeyo imka shaqaysta waxa jira kuwa halkan ka baxay oo gidaarka laga soo qabtay oo ay dawladda hoose soo qabatay iyo booliska iska kaashanaya gudida caafimaadku oo intay bogsadeen iminka dawladda hoose shaqaale ka ah oo ay maayarku shaqaaleeyay oo shaqeeya maanta aan idin hadlayo xoolo nool baa u jooga talaagad kalluuna u buuxda talaagad hilib u buuxda laba bakhaar oo raashin u buuxa mariyihii baa u yaalo kuwa iminka loogu bedelay ku baxayaan baa u yaala dawadii baa u taalo oo monthly loogu keeno bille loogu soo xareeyo dhaqaatiirtii experience ayd baa u jooga maamulkii iyo shaqaale caafimaadka u jooga war halkaad ka dayayso halka waxba kuma yaalaan ha ka dayn gabagabadii waxa isagoo halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi waxaanu ka jawaabay hadallo ka soo yeeray siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka oo inta badan eedeeya caafimaadka gobolka Saaxil uma baahna in ama la dacaydeeyo ama waxaan qabanin loo yimaado marka dadka dadweynaha cisbitaalka waxaan u sheegayaa inay u baahan yihiin cisbitaaladu maadaama ay dad xanuunsanaya inoo jiifaan in la gargaaro in la shaqeeyo iyo in wax lagu taro laakiin uma baahna in wax laga rido ama wax la yeelo ama la dhaawaco inay iyaguna inta ogaadaan baan fariinta u dirayaa Maxamed Cali Nuux telefishinka caalamiga Gobonimo TV magaalada Berbera